aan ku dhaliilayo heesay qaadaan xidigaha geesku heestaasoo la yidhaahdo qabyaalad waxa weeyaan waa gaf laga galay dadka iyo bulshada weeye waxaa laga dhegaystaa heesahooda ilaa Jabuuti Ethiopia ilaa kiilka shanaad ilaa NFD ilaa geyiga Soomaalidu degto oo dhan baa laga dhegaystaa heestaas waxaa ku jira waxa weeyaan erey koobiya oo laga soo koobi gareeyay xilligii kacaanka dawladdii Soomaaliya waa ereygii la oran jiray bulsho fagaaraha khayriyada Hargeysa markuu la taagan yahay ninka madaxda dawladda markuu soo taago wuxuu oran jiray bulsho dadweynuhu wuxuu oran jiray ha israacdo waa ereyadii lagaga khudbadeyn jiray waqtigaas ka oran waayo sida gacanta wuxuu ku muteysan jiray xarigu ku muteysan jiray kaandiid xidigaa geeskuna eraygii bay koobi gareeyeen oo ay ka dhigeen hees iyo nooga dhigeen baalkii muusina way ugu tumeen qaladaadka ka dhaca kale waxa ka badan bulshadan oo ay yiraahdeen waxaad qabsataa laga qariyay ma habaar baa mise waa duco waxa lagaga daba tagay xilligii qaxootiyada waxa la yiri bulshooy marbaad qamandiga abaal ku qabtay anigu waxa kaga jawaabaya gabay anaan hadalka dheerayn gabay baan kaga jawaabaya gabaygayga gudooma waqtigii taariikhdu way isdaba socotay waqtigii iyo taariikhdu waa isdaba socdaan waqtigii iyo taariikhdu way isdaba socdaan taariikhdu waa kala duwan yihiin ninka gabayaya ama wax ka gabaya ama wax ka heesaya wuxuu sameeyaa taariikh buu soo qaataa ama dhacday buu ka gabiyaa ama uu ka heesaa laakiin bulshadii oo dhan inuu eed saaro waxa weeyaan waa laga qurux badan yahay heestan idinka maqashiinaya xoogaa yar idinka maqashiinaya bal dhageysta haye ila dhageysta horta yar dhowr eray ila dhageysto kamid ah heesta waa eraygii halku dhiga ka ahaa kacaanka bulshooy ayuunba muusi lagu daray taariikhan shaqo ku lahayna dabada loo geliyay dhageysta gabaygii gucumaala aro micidu gawdiiday gawsaas dhaafsaday intuu guura socoteeyay gaaxsanaanta maansooyinka gocotay laabtay gadololooyinkaan arkaa geedhu kicinayso gafka qaranka yaa galay yaan gudan wanaagiisa geesiyada halgamay ayaan gaf loo helin gurigaaga ood nabad ku doogayso garowga iyo galeyda u mudan laguna dhaataa geeluba marbuu sahay ku galaa goolka qalataa gawraca wankaad bariya shirataa guushii dhalatay geesiyaa u kacay laguna geeraar go'ashadu way xun tahay qamandi joogtaa goobjoognimaan ahayn marag ma weydiiyo goortay holocday baaruud iyo gumca qiiqaaya gaashaanqaad ninkii ahaa wuu garwaaqsaday guurti iyo garwadeen ayaa gaadhka loo diray god abaasi jiiftiya abur laga waah geesiyada halgamay baan gaf loo heline xidigaha balgeeskow galbis baa tuntaan galab la hoynaayo
kadhka waxaan u jeedaa inaan gabyaa golo rag jooga gobol koobal dhacay himbiriirsigoo goohu dami waayey gobol koobal dhacay himbiriirsigoo goohu dami waayey goortay colaaduhu dhacaan waaba kala guur gasiinkoo la cuno laguma geeraaro goob xareedu jiiftay galaalacnaynayso geed hadhaca ood gogol dhigataa lagu gamaa dhagida tii fiican geedaha dhalowyahan baa ka baxa ubax bixinaya garaacuba mar buu reebe yahay inaad gudin ku goysaa gobdahanyo waa lagu gubtaa gobdahanyo waa lagu gubtaa lagu xajiimoodo taariikhdu waa mid sugan marka wax laga gabayo ama wax laga heesiyo waa inay ahaadaan wax bulshada ama anfacaya ay ahaadaan bulshadani way soo martay xaalado way soo martay laakiin maanta waxaan maanta Hargeysa laga dhaxeysay wax u cuntama maaha geeyiga Soomaalidana waa laga dhageysanayaa meesha ceebtana cidi waxa qaadaysiba ayay dhakada cidi qaadaysiba dhakada ka saaran tahay imka Soomaaliga waa la koobiyeeyaa waxyaabaha lagu heesay imka waa koobi xitaa ma garanaya taariikhaha ma halku dhig buu ahaa muxuu ahaa wuxuu ahaa ma garanayaan waa muusi baa loo tumaya waa lagu macaaneynayaa dhageyso ama ha dhageysan waa cabdi godba laga hayaa waa waalidu casba marka uu fidiyaa hadii daro waa laga yaqaan sidaas lagu ogaanaya inuu gabaygan ku soo baxay inaanay heestaas bulshadaas aanay waxba waxa lagu dhaliilay inaanay waxba ka jirin oo aanay waxba ka jirin oo aanay geyin saah loola socdo